waxaa xariga maanta laga jiray xarunta badqabadka xoolaha nool iyadoo uu ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish isla markaana waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay shacabka ku dhaqan degmada Karaan xarunta xariga laga jiray ayaa lagu sameeyay dib u dhis iyo dib u dayactir xoogan Cumar Filish duqa caasimada Muqdisho iyo ku xigeenadiisa kormeer waxay ku sameeyeen qeybaha ay xarunta ka kooban tahay looguna talagalay in lagu ilaaliyo xoolaha magaalada dhex wareega si aysan ugu dheelin buu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir bilicda Muqdisho intaasi kadib Abshir Maxamed Maxamuud gudoomiyaha degmada Karaan ugu horeen warbaahinta la hadlay ayaa marka hore ka warbixinaya ujeedka xaruntani loo dahfuray mudane gudoomiye waxaa sharaf noo amaantay in degmada Karaan xeradan maartay ay sheeg horumarinta badan lagu sameeyay maanta aadna xiriig jarto waa kaga mahadcelinayna mudane gudoomiye horumarada aad degmooyinka iyo gobolka Banaadir ka wadaba sidoo kale inta waa kaaga hambalyeeyna gudoomiye kuna soo dhawow maantay xafladan sharaf kale oo aan maanta ugu talagalnay in xiriig jarkii baadqabadka degmada Karaan maanta aad nooga xiriig jarto waan kugu soo dhaweynayna mudane gudoomiye ku soo dhawow duqa Muqdishahana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish dhankiisa waxa uu tilmaamay in xarunta aqalka dawladda hoose xamar ay waajibaadkeeda ka gudan doonto xoolaha magaalada lagu soo fasaxo xaruntaas baadqabadka waxay xalin doontaa ama ay qaban doontaa haddii alla idmo xoolaha magaalada la isaga soo daayo bacaha cuna qashinka iyo wasaqda cuna hilibkooda iyo caanahooda ay dhibaato ka soo gaarto dadka in magaalada laga nadiifiyo oo halkan lagu soo xareeyo ayaa loogu talagalay xeradan isla maantay ayuu soo bixi doonaa haddii alla idmo go'aanka ku saabsan xoolaha magaalada la isaga soo daayo magaalada waxaa lagu soo dayn jiray lo'da iyo ariga balse hadda waxa ku soo ziyaaday geel iyo dameero afartaas nooc ayaa waxaa loo dhisay 4 goobood oo aan kala fogeyn oo loogu talagalay dhammaantood in lagu soo xareeyo xoolahaas dadka iska leh xoolahaas waxaan u soo jeedinaynaa halkan inay xoolahooda ay xafitaan oo magaalada ay ka ceshadaan cidda ceshan weyda haddii alla idmo waxaa jira ciidamo iyo gaadiid ay shaqadoodii tahay inay halkan ku soo xareeyaan magaalada marka xoolaha laga soo xareeyo oo ama dadku ay ceshadaan ama neefkii la cesho waayo halkan lagu soo xareeyo waxaa soo baxaysa magaalo nadiif ah iyo xoolo nadiif ah oo aan wasaq iyo qashin iyo bac aan cunayn oo caanahooda iyo hilibkooduba oo caafimaad qabo xoolaha inta badan la isaga soo fasaxa magaalada waxa uu maamulka gobolka Banaadir hore u sheegay inay ku dheelayaan dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda Muqdisho Faaduma Cabduqaadir warbaahinta Shabeelle Muqdisho